guuba waa silsilada ugu caansan looguna jecel yahay suugaanta Soomaalida waxaana ka qayb galay rag badan oo miisaan culus ku lahaa maansada Soomaalida waxaana bilaabay oo curinteeda lahaa Cali Dhuux Aadan Gorayo oo dhulbaanta ahaa Soomaalidii hore daaqii biyuhu waxay u hayeen lafdhabar noloshooda ku dhisan tahay had walbana waxay u hayaami jireen halkii doog caleen leh uu naqu ka doo sidaa awgeed ayay u noqdeen dad reer guuraa oo aan sal iyo deganaansho lahayn waxaa kaloo taa u sii dheera dhulka Soomaalida oo ah deegaan cimilada heer kulkiisu ay aad u sareyso sidaa la ajligeedna xoolo dhaqatadu ay biyaha si aad ugu baahan yihiin way isku dili jireen oo mararka qaarkood hal qabiil oo beel qura ka wada dhashay baa isku leen jiray haddaba maalin maalmaha ka mid ayaa Cali Dhuux Aadan oo hashiisii cartan looran jiray wata wuxuu soo dul joogsaday ceelkii Camuud oo doolo ku yiil waagii horan uu ku ogaa inay ogaadeen ku lahaay hayeeshee markii dambe habaryoonis ay xoog kagala wareegtay wuxuu damcay inuu haraad tiro hayeeshee way iska hortaageen oo way u diideen in hasha loo waraabiyo dabadeed isagoo aad u cadhaysan ayaa isla goobtii uu ka tiray gabaygan gaaban waana halkaa ay ka bilaabatay silsiladan iyada ah cartanay Camuud la iska qaad ceelkii reer magane hadday curodadii nool yihiin waad cabi lahayde nimankii ku caawimi jiray baan cidii ka noolayne Cabdulaahi Yuusuf baa ciidda hoos mare bedel baa cashiiro ugu xigo cuqdabadeede niman baaba caarshow noqdiyo caamir oo kale markuu haybe sidii Cumar degay lagu soo cararayay mala cawri reer Yuusuf waa ciidan ogaadene miduu caayo miduu caydhiyo miduu carjaameeyo saddexda calaamuu ka dhigay cuurkii reer tale caqli midaan lahayn baa tahay hay caloolyene cayn iyo hartaad leedahay caraqda fuuqfuuqso markii ay tixdaasi maqleen ayay intay ku soo xoomeen oo ay raali geliyeen hasheena u waraabiyeen bay ka codsadeen inuusan gabaygaasi faafin iyagoo ka baqaya inuu dhaco dagaal baan oo lagu hoobto ama ay timaado suugaan dagaal oo fooda la istaro isagana wuxuu ku xidhay shuruud adag oo ahayd inuusan gabaygaasi cidna ka maqlin Soomaalidu dad sir leh oo wax u qarsoo yihiin maaha muddo yar kadib waxaa soo shaabaxday maansadii Cali Dhuux oo ay ka dhex muuqato tuducdii ahayd hadday curodadii nool yihiin waad cabi lahayde doqonkii ogaadeen ahaa dool laga qaad kadib Cali Dhuux gabaygii buu dhammaystiray oo wuxuu yidhi doqonkii ogaadeen ahaa dool laga qaadee loo diid danood iyo hadduu tegi lahaa ciide niman baaba dalkoodii iyo xukumaan labada daaroode daratool iyo faafan oo wada duraabaya deegaanta haradii ku tiil daaqi mahayaane doox kama mareersama halkee dalab ku beereede markuu duraha jiilaalkacee dooga laydleeyo duurkii dayada hawd markay dabac ku soo hoonto laaskuu ku dalan duuli jiray loogu degi waaye alladow guduudii wardheer kama durduurtaane dawadeedu waa jeeraley ugu dulgeeraan ceelkii biyaha deerana looma dowdageen dixda qarantii dayrii mataan loo dardarin waaye maantana dukaamaa la dhigay degalkii gaafoowe darar kaga maalaan Camuud deeqiyo xore dixda reegaleed iyo gargaar la isku dacreeye dayr baaba lagu soo meeriyo loo dabaaldegay wardheer aan dagaal xumi ka dhicin dig iyo baaruude tooxii tooh iyo faafan waa soo dalbanayaane kuna dalaaqay naagihii inaanay dib ugu laabmin iidoor siduu damacsanaa loo diyaafadiyey
hadba dunida duulbow kaco diin la soo shire dar ilaahay unbaa xaggiisa loogu soo diray warsawsyada darwiishkiisa duub cad uma qaadan makaahilku doy uma kicin dagay hiiraane daacuunku meeshuu ku layn ummadda lumeyne daal iyo hadhuudh kuma cuneen dagalkii hadhweyn habaryoonis bay ugu durkeen dagaladoodii dullinimo inay qaybeen waxa uu daliilkii ah dadba weli ma arag reer subeer duul ka soo qaxee doonyi iyo dabriyo weerar iyo malaha duulaane ninaba uunka kama dowladsana dir iyo daaroode ilaahay baa dabkoodii nasakhay iyo danabadoodii dadka uguma liitaane way diriri waayeen afartaa sidii danab la riday maysu daba joojay daadii aan ka qaadiyo miyaan deel ka habowshay madalee deelqaafku waa kaa dilaa gabaye dacwad kalena waa reer xirsiga halaan dareensiiyey dadka waa la wadaleynayay waad u daraydeene dubbihii ku dhacay biixi cali joogta weli haysa waa waxay la dabandeebayaan dakharadeedii waxay dalaga beeraha la qodaan waa dagaagnime damalaboodi deerii afmeer dixida gaarooti reerahooda maalintay degeen daaw lagu boge sida galab dawaar loogu rogay dalab ma maalaan ina raabi waa tii la dilay waana reer dale dumarkuma sogootiigeyn kuwii dahay waaskii danbaa tidhi lama duudsiyeen diriirkii dheeraaye aniguba dubkaan ugu nixiyo diirka oogade ma damqado kii dad ugu xigee wuu durduriyay ilmo dacarba duul bay indhaha dumuq ka siiyeene nimankii walaalkuu durqumay kama dambaysiine degdegsiiyo waatay ciyoon duqooy u laayene nimaanse aabbihii dalafyadeen looma duur xule dib baaba looga yaabaa inuu kaaga sii dare dagaalkii jilaas ugumalen duulkii reer shale dunta boqorka nimankii sidee duubi jiray shaalka bal muuduro waxbayaanu dilin doorn u layne geerida huraha diidayay darajo dhaamaan afartaa sidii danab la riday maysu daba joojay daadii aan ka qaadiyo miyaan deel ka habowshay madalee deelqaafku waa kaa dilaa gabay dacwad kalena waa anigiio dan iska sheegay maansadan dad wada qoonsadee diradiro u qaatay diin runa daliilkii sharciga ee aan ka daabacay dambi inaanu iga raacahayn waxa uu daliilkii ah daayaale geelii la helay wakaa deer dhale duudweyn ma jiro haamiyo dabacadaadle darinkii afkii daadmareer kuma dareershaane dahab waatan iyo qaalmihii deer cadka ahaye dufaf quruxsaley ma foga dalawadiiniye dambarkiisu waydin uraa waadna dabataane iyadoo dildilihii bishimihii dacashihaaneeda oo wada dunuunu ahayuu idin dul joogay dubux baaba lagu sii wadaa dararkii baarjeex afartaa sidii danab la riday maysu daba joojay daadii aan ka qaadiyo miyaan deel ka habowshay madalee deelqaafku waa kaa dilaa gabay dacwad kalena waa anigiyo duunu hadalkay nabsigu waa dabaylaha cirkiyo sida daruureede darsiinkii wax qaatuu laayahay deenkii godobeede daa'iradu maantay wadaa duulashii galay xaqa dagoogmay duunyada la dhacay dumarka hoyaaya naagahan ilmada duugahayee diilalyadu hayso daa'ima haddayn ahayn dage xaqiiniye dagaalna waan jeclaa xaajaad dib ugu aydaane doqon yahay ka kacaa meeshanaad dacayda laadlaadin durbadiiba waxaa maansadii guba ku soo biiray oo ka dhiidhiyey qamaan bulxan oo ogaadin ahaa wuxuu yidhi caliyow dabuubtaada gabay daayinka wadee
dabaylaha xagaagee dhiciyo daafigaa sidee loo dooje doogeeyo sida dararta xoolaade diirkii laftuu xulay hadduu hadal wax daaweyne dadkana uma sinee reer tolkee dacar ku nooleeye anna waan ku diirsaday ilaah darajo siiyowe daaraan garbaha qoon ku leh baa damaqday dhuuxowe dibirootiguu dhacay ragga dabaqadayseene waa doqon dilaaciyo ciil dibnaha rugaya iyo doqon rudaday oo fadhiya dagada weeyaane dunkaad joogto waan kula dacwiye doodna waan celine dabbaad ololisaa kumana gubo daayin abidkaaye intaa dogob shidaabaad taqaan diradiraynjaane daaskaad fadhida soo gube dalalkii qiiqaabay haddayse daacad xaajadu tahaan lagu dambaabin dambaaburada naareed haddaan dhinacu doonin warseedow maxaad noogu degan dakharku waakiine daldhacsiga danaasa calamood dow inaan ahay isdallayminteeda ninkii dagani eedaaye dubbihii ku dhacay ina barwaaqo dagiiba maysaane daaduunka caydheed ragga dibadda meeraaya docmo iyo hartaa lagu ogaa dalawadoodii calidariga daadhin shalay naga durduurteene wakaa dalfii caanihii dagii heemaale anna waxaan dibiray waa dagaag dayr soo xulaye darban maayo waagay xubnaha yaro dubaaxshaane inaad dayso beel degan adigoon dani ku sayteen dabcigeedabayaa kugu yaqiin digasho mooyaan hadday dabacdo waa u hiiliyaa doqon walaalkeede diiftiiyo u sheegaran intaad dayada haysaane dibna haddaadan ii tarahayn maxaad iigu dana sheegan doonyada fardaha maalintaad dalab ku qaadaysay sidii duulabxaaraad markaad nagu dabraynaysay intaad haatan ii laba dibleyn muudamqado jiidhku daarood ismaaciil ahaan hilibka muudiro daabaca ninkii kugu dhuftay daabka kuu celiyey iyo kii dula jeeray wax isma doorshaane dekanadayda yaa kaa xigaad iigu danayn haat aar soo dib jiray neef hadduu daacifta u geliyo uu kaga digsiilkaha dhiigga kaga daadsho dugaagga yaryar sowka cunaa duunka hadha maaha adigaasi dilee goormuu isaaq doolayga qaaday maxaa libinta daarood lahaa dabacayuun siiyey haddayse dubaxuugu haysayaan dacarna waan siine ma waysan haatan daab iyo uliyo kaga cabbaan dowlis dusha daaris oo dibi dhalay oo loo dambarinayn oo kii lahaa diiday bay sabi ka doontaaye kuwaan darisnay dooxeer haddaan sabanka daaduunsho waxa adiga duub kaaga noqon bay iga degi waaye gabdhaha doonan dadabtaan dhisniyoo xidid dariiqaynta kuwaan dihanay dirac ay dhaleen waa duleemadee muslinka hayga didin yaan ibliis dowye kaa ridine darka jabay dilaalkiiyo dhulkuu dabad ku meeraayo deeqaa ilaahay halkuu xulay daadkiisu wariiddaa dugaag iyo haartibay iga deeraan ii doorse dirweeye hadduu duulaan soo bixiyo dunji habar magaadluu hadduu dabarka soo gooyo dumbuqiiyo rasaastana hadduu dabacsanaan u siiyo horta yaa la da-ah wayla yaab doowyadaad mari ogaadeen ka daan iyo ka daan doola soo gudubye diinkan akhriyey wayman dow raggii jire dunji maalintaa waxaad qabtaan waan u daahirine ma damaniye daynkayga waan dabagelayaye idinkuba darkii caynaba daris ku taaliine dagaalama ragduurkii lalaa duubcaddii hagare ama nadaaya waan wada qabnaa daawashii cebe
caliyow daadaanahay waqaa looma duur xule duq gaboobay iyo wiil yar baa loo dadaa hadale diirkan ka garan xaajada dabaqa saarteene ma dumaalo naaguhu ninkay nolol ku dayrtaane nin walaalkii doorsaday ilaah darajo siin waaye baadida nin baa kula daydaya daalna kaa badane aan doonahayn inaad hesho daayin abidkaaye dadkuna moodi duul wada dhashoon wax u dahsoonayne dalla ma laha aakhiro haddii loo kitaabday dilaal iyo milaal wuxuuba waa carabta dayntoode dibnihiina uun baan galay oo way dudubiseene allay diliye ii door adiga iiga sii daran intaa kadib waxaa silsiladii ku soo biiray gabyaagii weynaa maxamed fiin oo habar yoonis ahaa isagoo tolkii uu ka dhashay daafacaya isla markaana ataagaya cali dhuux ayaa waxa uu yidhi calow guwa kan gabayga tiri gocosho weyn reebye wixii gacalahaa uumiyuhu waa mid kala geyne gabadh iyo walaalkeedna way kala gadoomeene gardariyo isyaalyeel mar buu gubay bilaadkii nin garaad leh baan kugu ogaa gaban ahaantii maantoo guyaal badan jirto guudku ku caddaaday bal garwaaqso warankaad gantiyo gadahaad joogto guntigii wadaadkii layd gabagabayntii galow baa kiciyey ceelashaad geysi ku ahayde buu hoodle geel looma horin goortii dabadeede gamaankii badnaa uguma fulo labada geesoode garcaddii shubaysiyoo lawaa garabya weyntii geedaha ka baxay lagama cuno guduubyada u dhowe god abaaday wakaa noqday guri madoobaade waxa guuldarrada ugu wacan gini colaadeede waa gaasir reer cali wuxuu wada gudboonaaye mugu yaree see cali tashiigu uga gulaalaaday guhaad laguma falo ruux hadday gogashu kuu taale gaadiid ku qaadiyo haddaad galindhaxaad weydo gorgor lama shiraystiyo hashii geela ka irmaane guntana lagama jaro geed hadduu ku gabaadaaye afarta gamuumaye sidii leebka mau gooyey goobo kalena waa erey yaraan godob ka faaleeyey gundagooye nimankii dhigay baad ka calahaydeene cabdi maxamed gabayuu ka tegay goloskii dheeraaye gaydh iyo waxay caro qabaan garanba maysaane aar soo gadoodsaday wuxuu gaadho waa diliye goonyaha haddii lagaga ciyo guuldaraa dhici geelii ogaadeen ninkii goofiyaa tahay giddiga reer subeer yahay ninkii gaadhi baa tahay ninkii geed ku xidhay baad ahayd galabtii weyshiye gudaha adari waa laga tirshaa gabayadaadii gaal islaan nabaddu wou gogol nasteexaade marse haddii colaad loo guntado qoray ma laacdeene ciduunbaa rasaas kugu gambii geemba ma lahayn ogaadeenku waa gamaasan yahaye gamasyaha u dhiibin godobta ha ogeysin rag waa garacyo shaydaane gacalow ka joog meelahaad gacal togaadaysay haddii kale aadunba ugu-e gabaygaashaada waxay noqotay weerar iyo weer celin waxay yeelatay xiisad iyo xamaasad hor leh afarta koonee jahada ayaa lagaga haasaaway ficil iyo fuduushiiba cirka sare isku shareertay iyadoo arrini ay halkaa marayso ayaa waxaa soo rogaal celiyey
qamaan bulxan oo wuxuu yidhi nimanyow raggeeru bato lagu gumuunayo anaa galiyo anaa gambiyey goor kastaba joogta oo lagu gartaatacayo gebil madoobaaday oo lagu gashaday baasihii gaala dibroonta gabagabadii daayaale ee gabaygii loo jeejay sow inuu gadiyo haatan cali lama gudboonaan hadalku waad gaftee maxamedow kuuma soo geline markii farasku kula gaabiyey gegida kaa qaatay gab inaad tidhaahdaan damcay oon cali garaaxaye naagtii gambada taabatay ee gacanta loo meedhay oo gelisay meeshii haddana gabaygu soo maaha cawl baa midgaan soo gadiyey soo gabraar tegee isagoo wax lagu gowriciyo geerisaba haysan jeeniga gafsiyo mindibay qudatay gaarihii adiguna gaddiisa taho waad iskunaanadii xaqa geegmay feedhaha miyaad yara gufaacootay sow midaani siri gaatanaan gabay lahayn maaha geeraarkii faanku sow guba la xeer maaha galti qayli oo had iyo goor ganafkuun taagi oo gowraca kaa mudan aasaad ka calwalaalaysay oo gogasha kaa kicin waa sida gumbuurkeede guntigii la furay haatan sow lama garwaaxaysan labadeena gobol xaajada laysku guubaabshay haddaydan gudiyin oon ciyoon gunana loo keenin walee inaan tix laysugu go-o gaagna hadhin baan sheegi cali dhuux oo gabaydii guba ay horey ugu xidhnaayeen ayaa gabaygaasi qamaan bulxan uu tiri ay ugu furmeen sidii aargantaal qaba waxaan gocosho reemaaba garhkii waxaan labada low meel isugu geeyaaba gaajada jidhkaygii wuxuu golongol dhuubtaaba dhulka waxaan garaacoon debnaha gawda ku hayaaba ama galowga qeeshiyowgaadh garabka saartaaba gardarrada caddaanka waxaan gudub u eegaaba gacmahayga waxaan laaboon xadhi ku giijaaba guubaabada nafteydii waxaan geesigeliyaaba ama geerii nolol miiduun libinta gaadhaaba qamaan ujeeddadiisu waxay ahayd in dagaalkii suugaantii afkaha uu sii socdo isla markaana uu cali dhuux ku khasbo inuu dib ugu soo laabto qeybta labaad ee wareegga giraanta si faraha looga gubto hadalhayntii silsiladan iyo taageerayaashii labada dhinac ayaa aada u kordhay inkastoo labada nin ay habrawadaag ruma ahayn haddana waxay ahaayeen laba nin uu weligoodba si gaara isku duqayn jiray maanse baana ay ka dhexayn jirtay cali dhuux faham ujeeddada iyo daandaansiga qamaan bulxan dabadeed ficil buu kaga jawaabo wuxuu yidhi dhankan ka hadlay wakaa qamaan dhaafay hadalkii dhixiirka ha iska gooyaan lahaa dhuugga loo tolay haddii dhaxal adoogaa la cuno waad dhadhamisaaye waxaan cunaha dhaafinayo dhaafsil baa jire naagahan dhankii loo rogiyo dhinacba diidayne dhadigoojaha lagu arkiyo dhiigga caadade haddayse dhiilka caanaha lahayd laguma dhaarteen wax ka dhigan goobtii dhowrsataan ceeb ka dhiidhiine dhirfal buu isaaq marin intuu dhaco ogaadeene karuu dhuumay dhaydana ka jecel waay dhamaayaane dhoobada hargeysiye berbera waa dhitow taale dharka kama macaasheen hadday dhuunta jarayaan waa dhagalayahay reer subeer dhoohan weligiye dhibta gaadhaawaa moogeen iyo dhaliishoode aanuunbaa dhalaalinahaye dhiiran mahayaane intaan dhalasho waayaab qabtaa dhab ugu soo ooyey dhaladu waxiga saaray culus dhamalnay raaciye dhudhun waabay sheegtay adag dhiilanee geliye dhawaaqayga kuma farxaane way ka dhiidhiyaan kuwa dhabbada soo xiranahaye dhooni kala haysan
oo dharaftax jeexjeexan qabo waad la dhalateene dhafoorkaa ma yeesheen hadhgalay dhogor xumaantaase rag baa caanahaad dhami jirteen dhiil u hoorsaday afartaa waa dhaabad gabay dhextaalkii hadal dhagaxyo waaweyn ka culus waan dhugsiin jiray maansadu dhahun lama yidhaahdee waa igu soo dhacdee dhudaheeda layskuma qabtee dhibic kalaan baan ahay dhinacaygama saari karo xulo naareede dhoormaan rag baa kaa dhargay dhidabka kuu qaaday dhaawacu ninkuu ku cusub yahay dhiigga farahiisa oo shalayto kaa dhaarsadaa dhoora kula yaale wakaa xeryaha loogu dhigay dhodo idinlee dhaqaaleyna mayside naftaad kala dharoocdeene liibinteennu maalintay dhowdahay kuma dhaqaaqdaane car ku dhacaa haddaad dhala tahay ood dhuubka boqor hayso afartaa waa dhaabad gabay dhextaalkii hadal dhagaxyo waaweyn ka culus waan dhugsiin jiray maansadu dhahun lama yidhaahdee way igu soo dhacdee dhudaheeda layskuma qabtee dhibic kalaan baan ahay ugaas magan dhawaaq kuma jiro dhimay warkiisii bal dhex mariyo reer webi inuu dhaamo baxawaadle cabdilaaadankii dhaadan jiray dhab u ogeysiya uga dhoofshaa dhidib muuse khalaf oo dhabta u saara cawlyahankii dhaanteynahayo dhugadna gaadhsiiya isxaaqa dhoobtiisii hadhay dhadabna loo diiday nimankii ku dhabanaanin jiray dhuub ka oogsadee dhirbaaxooyinkii soo ceshiyo dhabarjabkiiniye wataa hablaha ciise dhammal dhiraha laayene kacoo dhidibka rida waa intaad dhimanba weydaan dhambaala lama yaaciyo waraaq sida dhabiilade oo dhagaxan qaadiye adeeg gaaladaa dhihii raacdadu hadday kaa dhab tahay dhabi dagaalkeeda adoo dhididsan baa loo riidaa dhamac rasaaseede raggan dhidiyey wakaa dhacsaday dhamiye heemaale qamaan dhugo dhankaaga tolka looga soo dhacay dabadeed waxay noqotay badweyn lagu hartamaayo waxaana doonidii dagaalka dhinac ka soo fuulay buraale cali oo ogaadeen ahaa isagoo weeraraya cali dhuux aadan wuxuu yidhi dacwigii qamaan yidhi aanuu danabku ii keenin ma doonayn inaan gabayo diraa ama sidiiqaaye markaan sidaa idhaahdaba rag baa dooga jiibsaday wayga daawan yahay ninka diriirta ogaaye cali dhuux sidaas buu damacsan yahay diida hadalkiisa daaday maaha reer nabadaan diradireeyaaye hadday nimanku soo wada degeen nabad ha loo daayo ilmada carka duufkii baktiga dibad u meeraya hore raabigaan dunida tan diracna u dhaafeen maxaa darajo simay waa afkaan daan ku leeyahay ninkii dubuxdan geeliisii yimid dumarku soo qaadee ogaadeen maxaa doqon ka dhigay dowgal baa jire intaa kadib waxaa gabayadii guba ku soo noqday ninkii dhextaalkii weerka ahaa waa ninkii u geysanaa xilligii daraawiishta ee sayid maxamed cabdulla xasan diiqada ku riday waa kii lahaa aabbowda unbay hayaan kii arsaa'ili mar kalena waa kii lahaa doofaaraduu wadan jiray buu dila yidhaahdaaye iyaguna ma diidaane way kula dareeraan waa cali dhuux aadan gorayo wuxuu yidhi dan u baxay ogaadeen hadduu duudsi qaybee diriirsiiyey oo diiday inay duul ka nixiyaane anigii dagaalaminahay bay igu dabreeyeene duulaanna way soo baxsheen sida daraawiishee daabaca raggaa lagu dhuftee daabka lagu jeeday daabaqad wejigaa u hadhiyo diilin aan goyne ma iyagaa dadkii ahayn duudkii nabi aadan iyaguba dab iyo way haystaan dabaq rasaaseede dumbuquuda liishaanka daran daali ma ahayne dawadiisu waxay saaran tahay daacad loo ridaaye waase wuxuu isaga daadsan yahay doocna garanayne dhawdii ha daran dooriyeen hana dagaajeene
dushana ha ugu soo dhaamiyeen dumarku haantii dabinkii xumaaye sibraar ha isu duubteene dugsi dhaxan leh ha u yuureen diilali cile intay dacaro waaweyn dhigaan dalag ha beerteene mar haddaanay daaqeen walwaal nimanka doogeeda oo dibinta saareen wardheer loona dacareeyey dan wadaag iyaba waynu nahay dawna wadanaale bal ii door maxaa igu diray aan doologu sheegan waa hagaag waxaa gabaydii gubaab ku soo biiray gabyaagii weynaa ee caanka ahaa ee cilmi carab oo dhulbahanto ahaa waa weerar iyo difaac wuxuu ka cayaarayaa khadka dhexe ee kooxda wuxuu si toosa ula safan yahay oo u hiilinayaa in adeerkii cali dhuux isla markaana si ba-an u weerarayaa qamaan bulxan wuxuu yidhi hooyaalo gabay waayadan haanka kuma hayne in dhoweyd buu waataan ka hadhay himiladiisii ma hawilin maasooyinkii igu habboonaaye hoori walba goortuu tirshaan daayay hadalkiise ha yeeshee xalay uunbaa hurdada haatufi yimide qaar baa halee haddaan miinka ka higaajo heelkan ka maansoonayaa baa loo hanweyahay iga hooyaha waataad baryahan ku halganaydeen heebeednimadu waa waxay raggeedu ku hungureene haddii aad halyey tihiin hanada oo dhiiran ninna ma holiyeen xoolahaad gacan ku haysaane hubkii raggaba adigoo hodan ah habaar weeye habaryoonisood hiil u doonataaye haddii aadan hulnayn dagaal heebin aad weydo halgantoo naftaad geeridii kala hawooteene waase lama huraan mud inaad iska hor timaadaane hayin iyo anoo layga dhacay hala aan maalayo intuu halab karuurkeed nin kala dhammo ma hoydene anoo hilib ugaadheed ku nool kama hadheen xiis idinkuna hablaad ugu darteen hadiyadoodii hayin iyo dayn uu miyuhu idinku haasooye inaad hoos u wada foorartaan helay khabaartii horweyntii la qaatiyo raggii haanka lagu gooyey haadkii waraabuhu raggu ka hirqadoo laastay ay hanaqa wada jareen hebeladii laayay hawo inaanay ka hayn inaad wax u halaakayso aada hiiftay cali aadankii ficil isayn waayey oo aad hartigii eersateen helay khabaartii ha yeeshee waxay kaa hayaan waad ka heliye nin hashiisii laga qaatay oo lagu hormaalayo oo horin ka yari haysataan sidaan u hoomay oo weliba loo sii hanjabay lana halaakeeyey hawaar dhaba nin lagu soo dhuftay hayna laga jeexay ha-da maanso uma furnee kaagu waa habawe heeryada adigoon rogin qamaan haanta lagu saaray hadalba kuuma yaalee maxaad gabay ka hoogaamin بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan idin salaamayaa dadka sharafta badan ee quruxda badan ee isugu yimid waana idin mahad celinayaa horta mahad ilaahay baa iska leh mahadda labaad waxa iska leh dadka soo qaban qaabiyay barnaamijkan quruxda badan ee sharafta badan soo qaban qaabiyay aad ayaan ugu faraxsanahay hadal badan ma dhahayo marka waxaan leeyahay horta caawa aad baan u faraxsanahay ani isma dhahayn cimrigayga intaan noolahay waxaad arki doontaa iyadoo gabooyo la taageero xaqiiq isma dhahaynin laakiin wax walba waqti bay leeyihiin insha allahna wali sidii aan rabay ma aana gaarin inaan gaari doonana ilaahay baa garanaya arrinkan kuma sii dheeraanayo because anigu muddo badan ayaan ka soo shaqeeyay anoo 16 sano jira ayaan bilaabay inaan maaragtay qadiyadan ka shaqeeyo ilaa haddana waan u taaganahay horta alxamdulillah waxaan
rabaa inaan halkan uga mahad celiyo Cabdi Maxamuud Cumar ayaan uga mahad celinaya halkan aad baa waxay ugu ficnaan lahayd inaan la joogo madaxweynahaas because waxaan u galin lahaa bilo dahab ah ayaa surka u suri lahaa xaqiiqda wallaahi way waxaan waqti badan u soo halgamay waqti badan ku soo dhumiyay aan lacagtayda iyo dahabkayga xataa u iibiyay waqtiyada kamid ah inay maanta gabooyo gaaraan Soomaali la mid noqdaan ya waxaanan oranayaa jazaakallahu khayr wa jazaaka ilaahi subhanahu wa ta'ala in ugu bedelo janna firdaws a'la adduunyada waxba laga qaadayo asagana intuu adduunka joogo ku xafido madaxweynahaas wuxuu ku sifaysan yahay maarta xadiiskii rasuulka kaleey salaatu salaam anigu waxaan qabaa inuu sagabooyo kaliya u hiilinay Soomaali maxamed oo dhan u hiiliyay riisanku Soomaali maxamed oo dhan ugu hiiliyay waxa weeyaan waxa li walaalka laba jeer u hiili hadduu dulma yahayna u hiili hadduu gardaraya u hiili hadduu gar leeyahay labadaba u hiili baa la yiri waxa way Soomaalidu aad bay inoo dulantay wax badan bay dambi naga soo gashay kumanaan sano wuxuu ugu hiiliyay dulmigii ay ku jireen ayuu gacanta ka qabtay sababtoo tahay walaalka dulmiga gacanta ka qabaa la yiri Soomaali aad buu ugu hiiliyay sida aniga qabo annagana wuu noo hiiliyo wuxuu noogu hiiliyay in baadilnimo lagu haysto xaq darrana lagu haystay ayuu arkayo Soomaalida tusay marka waxa weeye madaxweynahaas aad aan ugu hambalyeynaya waxaan Soomaali ku soo dhiiran intaas oo sano ku dhiiran culimada diinta iyo xaq taqaanay ku dhiiran ayuu ku dhiiraday oo ah inuu dulmiga gacanta ka qabto Soomaalida Soomaali baan anagu ka dhalanno Soomaali baan nahay horta dhulkana kamaana soo bixin dhirkana kamaana soo dhicin ma u malaynaysan aniga adinku inaan midab ku kala duwanahay aragtida bayna ka duwanahay adiga soo ku meeki way aad iyo duwantay 1 sano ya soo walaasha mihi muslina diinta islaamka xagee kaga taal inay dulantid ya inay dulantid diinta islaamka Soomaaliya meesha kaga taal ii sheega miyay jirtaa haddaba ilaahigiina abuurtay ka cabsada inta ay maqlayso oo caalamkayga maqlayso inta ay maqlayso oo caalamkayga maqlayso oo waxaad ilaahay uga cabsataan adinku aniga hay turinina adinku naftiina u tura way naftiina waxaad ugu turaysaan rasuulka kaleey salaatu salaam wuxuu yiri qofka waxa dambi ugu filan inuu qof walaalkiisa duro oo baarka uu duro oo yiraahdo qofka waa sidaan iyo sida Soomaalida lagu sameeyay anagu dhibaato kasta oo lagu sameeysan walaalaha yaatiin Soomaali baan nahana kuna anagu waa in jecelnaha dhibaatadayni ma quurno hal qof oo Soomaali inuu wax yar xanuunsado ma jeceli beenini ma sheegayo wallahi hal qof oo Soomaali adduunka caalamka meeshu ka xanuunsayay wallahi waa la xanuunsadaa maxaa koos garay adigu intaas oo sameeyay dulmaysay marka ya marka madaxweynaha kilanka shanaad Soomaaliya waxaan leeyahay guulayso hadal badan ma hayto de Soomaali waxa la iga horeeyay laakiin waxaan leeyahay dulmiga dhulka dadka ka dulqaaday adigana maalinta qiyaamaha cadaabka Allah ka dulqaado laakiin Soomaaliya anaga hanoo turinina adinku isku tura maalin ilaahay la hor istaagi doona imaan doonta oo lagu dhihi doono maxaad qofka walaalkaaga ku durtay ma fahamtay waxa laga yaabanahay adiga inaan ka maxfid quraan sanahay baa laga yaabaa inaan ka cilmi badan laga yaabaa sharcigu ma lihdi marka inay tiraahdo adiga kuma guursanayo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri
suurad quraana wuxuu ku leeyahay gabadha islaamka wiilka islaamka uu guursan karaa adiga haddaad tiri wixii ilaahay soo dejiyay anigu ma samaynayo dee suuradda quraanka abad beenayseen waxaa madasha shirarkii sayid maxamed cabdulla xasan si heer sare ah oo meeqaam sare leh uga dhacday arooskii midnimada Soomaaliyeed arooskan oo isku calfadeen 29 lamaane ayaa waxa loo qabtay xaflad aroos oo aan hore uga dhicin geeyga Soomaalida taasoo ahayd mid soo jiidatay dareen gelisay qulubta guud ahaanba dadka afka Soomaaliya ku hadla waxaana xafladan aroos wadareedka midnimada Soomaaliyeed ka soo qayb galay hogaaminta ugu sareysa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu horeeyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar madaxweyne ku-xigeenada wasiirada deegaanka shaqaalaha dawladda odayaal dhaqameedka culimada diinka qurba joogta deegaanka iyo marti sharaf kale waxaana xusid mudan in xafladda arooskan la qabtay ay ahayd mid ku qotanta go'aamadii ka soo baxay shirweynihii 11aad ee wadatashiga xukuumadda iyo shacabka ee ka qabsoomay degmada Raasay ee gobolka Afdheer taasoo markii hogaaminta sare ee xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku soo bandhigeen kulan weynaha in laga wada tashado nidaamka haybsooca ama isirtakoorka ee ka dhex jira qabiilada Soomaalida kadib dood dheer iyo falanqayn dhan walba ah waxa la isla qaatay inay waxba kama jiraan tahay haybsooca beesha sharafta leh ee gabooyi ay ku hayaan beelaha kale ee Soomaalida go'aankii shirkaasi ka soo baxay in xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ballanqaadkeedii kaga dhabaysay oo ay hirgelisay sida lagu yaqaanay iyadoo ahayd mid ay dad badan isweydiinayeen suurtagalnimada arrintan adag ee dhaqamiga noqotay taasoo ay horey ugu guuldareysatay dawladdii Soomaaliya oo isku dayday jabinta fikirkan kumanaan qurba joogta Soomaalida ee ku dhaqan wadamada dayax xigsaday ay ku adkaatay jabinta fikirkan beel haybsiga ah iyadoona qaarkood ay la yaabeen wiil iyo gabadh isku diin dhaqan af oo isku isir ah oo isguursaday halka wadamada ay joogaan ay ka dhacdo inay isguursadaan nin iyo nin naag iyo naag balse aysan la yaabin haddaba dhalinyaradan oo ah kuwa iyagu si xor ah isku jeclaaday isla markaana go'aansaday inay wadaagaan noloshooda mustaqbalka kana soo kala jeeda beesha gabooyi iyo beelaha kale ee deegaanka oo ka kooban 29 lamaane ayaa waxay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka taageertay dhanka kharashka arooska iyadoo xukuumaddu siisay guryo si casri ah u dhisan oo loo qalabeeyay iyo waliba kharash qaabuur loogu sameeyo si meesha laga saaro fikirka ku tirikutaanka ah ee isirtakoorka ama haybsooca ah ee qarniyada ka dhex jiray Soomaalida dhexdeeda marka Soomaaliya adigu isdaba qabta dadka iyagana waxaan ku oranayaa waxa weeye waxa ku jira rag badan oo aqoon-yahan ah dad badan oo aad u cilmi badan xaqiiqdii Soomaalida anagu cilmiga Soomaalida waan uga horeyn anagu dad xadaarad leh baan ahay waxaan ka garanaysaa in xadaarad lahayn ee Soomaalida ka ilbaxsanahay adigoo midihaysan oo aan waxba aad ku kala xoolaha malaha aan ayagoo la birayn haddana midihaysan maxaad ku qalamaysaa ayaan midi ku sameeyay digsi adoon haysan oo wax ku karsatidna digsi baan ku sameeyay adoo cagacad oo qodax ku mudaysana kabahan ku tolay ma fahantay diinta islaamkuna ma qabto sidaas waxaan hadal ku soo gabagabaynayaa dad badan maadaama ay sugayaan waa inay mahad celinaya kulligiin Soomaalina walaalaheen weeyaa wiilka madaxweynaha ka maxaan ku kilinka shalaad waa la garab taaganahay qadiyadu sameeyay uu ku mahadsan yahay caawa hadaa heli karana bilad dahabaan u gelinaha surka laakiin badalkeeda insha Allah janna ugu ducaynaya waana la garab taaganahay qadiyada Soomaaliya oo dhan sida wiil madaxweynahaas ha noqdaan madaxweynahaas ku daydaan dulmi buu idinka qabta gacantee dulmiga uu idinku heliyay adukuna isku garta waana mahadsantiin kulligeen meel aad joogtaanba jazakallahu khayr